كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ballanqaadka alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ugu sugnaaday lab iyo dhadig ciddii samafasha inay ku nagaanayaan nolol suuban if iyo aakhiraba, waxaana lagu xidhay kudayashada suubanihii basharka sala allahu calayhi wasalam. nuur, hanuun, naxariistii khalqigan alle uu ku galadaystay waxa uu ka tegay ummad ay ka dhab tahay u hogaansamidda fariinta alle subxaanahu wa tacaala. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub. ummad alle raalli ka noqday iyagoo laydha maraya, ummad cuudkooduba cadaalad ahaa, adduunkiis wada gumaysanayeyna xornimo iyo amni u horseeday, addoommadii is addoonsanayeyna ugu bedelay addoonnimo ilaahay tabaaraka wa tacaala oo keliya ay addoommo u ahaadaan, oo ay ku badbaadeen harhkoodii iyo xornimadoodii iyo cadaaladoodii caruurtii iyo dumarkii cadowgooda, sida uu ka markhaati kacayo sooyaalkii nololeed ee basharku. ummad kooda u sarreeya uu u xamaalayo kooda u hooseeya, ummad kooda u xoogani uu qaadayo kooda u jilicdasan, ummad kooda jirani ka kale uu la buko, ummad haybadoodu nooshahay 1400 oo sano kadib, saameyntooda ilbaxnimo iyo xadaaradooduna ay muuqato 14 qarni kadib. rag waa raggii hore, raadna waa intuu dhigay. marka aad wax ku eegto diiradaha wargeysyada maanta caalamka, waxa walaaciyo warbahaar kugu dilaya dhashii hanadada oo ka caakufaya harka labadiisa gelin. waladku waalidkiisu dhaxlaaye maxaasiya, halkee salaadu ka xidhmilaada? soomaaliya, suuriya, ciraaq, masar, liibiya iyo qaar kaloo badan. ismaandhaaf iyo is-afgaran waa dhammaan geesaha nolosha oo baaxad leh, oo xataa laysla fahmi laayahay sidee loo wada noolaadaa. dhiiggii shucuubta islaamka oo la qiimo noqday dhiigga kaneecada, xasuuq ba-an oo ka dhan ah caruurta iyo haweenka, qaraxyo ay ku qurbaxayaan nafo beri ah oo waxay geysatay aan la garanay, ilaa ay masaajidadii ka geyn weyday. qarxinta iyo dildilaacinta iyo hagardaamo loo geysanayo dadku kumay ekeen oo keliya ummadda islaamka ah ama meelo xumo lagu sameeyo, ee waxaa lala beegsan jiray goobaha ganacsiga, waxbarashada iyo dowladda iyo meelaha ay bulshadu ku adeegtaan. waxaa baryahan dama si hor leh u soo badanaya qarxinta masaajidada ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyadoo lala beegsanayo dadka u soo doontay salaad iyo cibaado. maxaa ay ka imanaysaa qarxinta iyo ku dhex dagaalanka ama duminta masaajidadu iyo dulayntooduba? waxay ka imanaysaa fikir lunsan oo ku dhisan dhagar badheedha iyo aana kooxeed oo aan weji loo garanayn. masaajidada ummadda islaamka ah dhexdeeda waa halka loo doonto naxariista alle iyo dembi dhaafka, waa halka loo doonto aqoonta horta leh iyo ilbaxnimada sarraysa. masaajidadu waa halka laga barto nadaafadda iyo damalka nabadgelyada ballaadhan. masaajidadu waa halka uu ku jiro hagaaga dhabta ah ee adduunka iyo aakhiraba.
mana mudna in caday lagu tufo ama cod kor loogu qaado ama wax lagu kala gato. Iskaba dhaaf in qarax iyo hagardaamo loo geystee. waxaan noqonnay ummad himiladeedu kooban tahay, ummad ku murmaysa wax ilimo qabataya iyadoo waayaysa dawlado dhan oo ay leedahay, ummad aan kala soocayn nacabkeeda iyo gacalkeedaba, ummad ka indhaqarsanaysa xaqiiqadu meel kasta oo ay taagan tahay. xaggee laynaga haleelay? ma garaad yariba mise waa geesi dhammaaday? ma dhaqan xuma mise waa dhowhanaan? ma tabla'aanba mise waa tayaxumi? ma dulliba mise waa dulmi? ma qalad dhaca mise waa qaadhaan ku maqan? nin baceesaantii ceel keentay, nin walibana muuji aragtidii. bender iyo baadiyaba ummadda islaamku waxay u baahan tahay baxnaano. tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe. hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma goyseedhe. midnimadu waa waxa guul lagu gaadho, gunnimana lagaga koro. midnimadu waa waxa uu u baahan yahay noolaha noocyadiisa kala duwan oo dhan, dadka, xoolaha, dhirta. midnimadu waa cududa dhabta ah ee ummadi cadowgooda ku curyaamin karto. midnimadu waa waxa laga dugsanayo hamadayga iyo duufaanada xooggan oo gu iyo jilaalba dhacaya. midnimadu waa waxa lagu heli karo sarrayn adduunyo iyo sarrayn aakhiraba. waa waxa ay ku xidhan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inagaga raali noqdo ku socodka aynu ku soconayno fariinta uu inoogu soo dhiibay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam. caalamka oo dhani wuu kulmayaa oo wuu isku biirayaa. united nationka yani united kingdomka, alwilaayaat almutaxida america, caalamkuna wuu kulmayaa. caalamulislaamna uu sii kala googo-aya wadan wadan iyo gobol gobol iyo qaarad qaarad. muslimiintu waa ul iyo diirkeed, waxaanay isku leeyihiin awoodda. mar kastoo ay dhilmaanna waxay noqonaysaa awooddoodu inay daciifto oo ay hoos u dhacdo oo iyagii ay sii kala baaba'aan. saalixiintii mid ka midaba inankiisii wuxuu ku yidhi intuu ulu dhiibay kala jabi. markuu kala jabiyeyna wuxuu tusay inay fududdahay in la kala jabin karo usha keliya. markii dambuu dhowr ulood isugu darayo wuxuu ku yidhi kala jabi, wuxuuna tusay inaanu kala jabin karin, waayo awooddeedii baa badatay. macnaheedu waxay tahay mar kastoo muslimku muslimka kale uu ku biiro way adag tahay in la jabiyo. macnaha aynu ka faa'iidaysanayno qur'aanka iyo sunnaduna wuxuu tilmaamayaa, iyo sunnada nebiguna calayhi salaatu wasalaam, mar kastoo aynu isku biirro in awooddeennu badanayso. mar kastoo aynu kala tagnana inaynu kala daadanayno oo awooddeennu ay daciifayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ha kala tegina ee isku duubnaada awooddiinnu si aanay u tegin. xaggay yani wax ka xidhmi lahayn ama xaggay ka xun tahay waa in la fahmaa sida loogu kala aragti duwan yahay, ee loogu kala qanacsanaan badan yahay midnimada iyo saamaynteeda. kooxaysigu waa qabriga midnimada. guuli ma jirto, badbaadana ma jirto ilaa in la raaco nebiga calayhi salaatu wasalaam, inaan laga indha adeygin shariicada uu la yimiday nebigu calayhi salaatu wasalaam, inaan la iska dhagamarinin awaamirta amarada ay bixinayso, inaan la iska dhagamarinin amarada ay bixinayso shareecadu iyo waxyaabaha ay diidayso. ma la horumari karo, meel lama gaari karo ilaa laga xoroobo katiinadaha qabyaaladda iyo ku habsaanka reeraha iyo qoysyada. silsiladaha iyo katiinadaha kooxaysiga iyo aragtida gaaban, silsiladaha afkaarta iyo aragtiyaha hooseeya ee meel sare dadka aan gaadhsiinayn, wanaagna aan u horseedayn. ummadda islaamku waxay ku dhex jirtaa thaaluthul aswad. hadda waxaynu ku jiraa saddex geesoodka madow oo ah faqri iyo xanuun iyo jahli. labada horena ay ka dhalanayaan unka dambe. lagama bixi karo, dadkuna ma hagaagi karaan ilaa ay gacmaha iswada qabsadaan oo ay ku dul socdaan dariiqii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku socday, oo ay ka xoroobaan silsiladaha ay isku xidheen inay nolosha qiimeyn karin ilaa ay silsiladaha dib u eegaan. dhammaanteen waa inaynu hore u soconnaa, waana inaynu jidka nebiga haynaa calayhi salaatu wasalaam. khilaafka ka jira alcaalam alislaami iyo qaabkaynu ula tacaamulaynaa wuxuu noqonayaa qisatu dalika alcumyaan maca alfiil. 3 nin oo indhoolayaallabaa waxay ku soo baxeen maroodi. markaasaa la yidhi maroodiga taabta. mid wuxuu taabtay lugtii, markaasaa wuxuu yihi maroodigu
وجرد midna wuxuu taabtay dabadii markaas uu xul maroodigu waa xarig midna wuxuu taabtay calooshii markaas uu xul maroodigu waa gidaar mid kastaaba wuxuu doonay saaxiibkii inuu qanciyo oo dabcan uu markaa wajahatu nadarkiisa ama qaabka uu arkay uu ka dhaadhiciyo murankii hadduu batayo hadalka la isku celiyay waxay isku rogtayba in markaa la iskhilaafo oo kale uu ka ku dhaha khaa'im baa tahay ka kale ku yiraahdo markaa adaa kaafir adaa faasiqa ilaa hadalkii uu ka xumaaday wajahooyin badan uu ka jeeray su'aasha isweydiintani waxay tahay qisadan yaa ku qaldan طبعا مدنا كما خلدنا لكن waxaan la isla garanaynin alxaqiiqatu takunu akthar min wajh xaqiiqadu waxay noqon kartaa waji mid ka badan qofku isagoo si haysta kalna si haysta ay dhamaantood sax wada noqon karaan waxa daba loo baahan yahay inaan ka barano kayfa natacaamal maca alkhilaaf aw kayfa nakhtalif sidaynu isku khilaafnaa sideeba ra'yigeenu u kala duwanaadaa inagoo aan kala tagin imaam ahmed waxa laga sheegay raxmatullaahi calayhi inuu nin weydiiyay mas'alo ku saabsan bay'a dabadeed uu ku waa xaraan ninkii wajigiisu isbedelay oo aad uga carooday ilaa imaam ahmed ku yiri xaraan in aanu saasaan arkay waxaad u tagtaa sheekh fulaan isagu wuxuu arkay in xalaal tahay waxaynu ka baranaynaa inaan barano oo dib uga baxno oo inaan maroodiga cagtiisa iyo dabadiisa iyo calooshiisa ku koobnaane gabigiisa baa in wada aragno oo aragtideena khilaafku ay noqoto mid ka balaaran intii ay markii hore ahayd waa inaan aqoonteena kobcinaa oon kor u qaadnaa waa inaan gacmaha isqabsannaa oo taageernaa keena quman waa inaan xaqiiqada raadinaa inagoo dib u dhiganayna danaha gaarka ah ee ina indhasaabay waa inaan isku naxariisannaa dariiqana lugta ku haynaa ilaa geeridu ay noo imanayso كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا